بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada muuqaal cusub halkaad inaga daawanaysaan waa page-ka walaalkiin Abshir Baari waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa qiso jacayl oo dhex martay wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed laguna kala magacaabo Maandeeq iyo Mahad intaana muuqaalka gudan galin ka hor waxaan idinku codsanaynaa muuqaalka inoo la garaysaan share-tan aad inoo taawataan si uu gaaro asxaabu wanaagsan sida idinkoo kala ah muuqaalkan waxa halkan idinkaga socodsiin doona anigoo walaalkan Shariif Maxamuud Shariif ka bogasho waxaan dhamaantiin Maandeeq waxa ay ahayd gabar quruxdeedu tahay dhaqan wanaag iyo asluub wacan farxada nolosheeduna ay dadkoo dhan soo wada jeedin jirtay qof walbana waxa uu ku qanacsanaa aqligeeda saliimka ah dhoola cadeynteeda iyo daacadnimada ka muuqata wajigeeda Maandeeq waxa ay ka soo jeeday qoys iska meel dhaxaad ah hanti fara badan aan lahayn balse qalbiga iyo dhaqanka qani ka ah waxa ay maalin si kaliya isku barteen wiil la yiraahdo Mahad oo markaasi ku qanacday iyadoo aan wax war ah ka haynin dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ayay jeclaatay waayo waxa uu ahaa nin xaraga badan jirkiisuna dhisan yahay isaguna sidii caadadu ahayd mar walba wuxuu ku dadaali jiray inuu qariyo dhaqankiisa xun wuxuu u soo bandhigi jiray wanaag yar ee haysto Maandeeq iyo Mahad waxa la dhex dabaashay muujado jacayl iyadoo habeenkii oo dhan lagu soo jeedo sheeko iyo hasaawe qosol badan maalmaha qaar waxa lagu kulmaa meelaha dadku ku caawiyaan lagamana arko waxaan wanaag ahayn Maandeeq waxa qalbigeeda ka buuxsamay jacayl iyo kalsooni Mahadna sidoo kale waxa qalbigiisa ku dhibcay jacayl awoodiisu badan tahay wuxuuna aad ugu faraxsan yahay inuu ku guuleystay jacaylka gabar oo nin walba jecel yahay inuu nolosha la wadaago Mahad ayaa maalmo kadib ku qanciya Maandeeq inay ku kulmaan meel gooni ah oo cidi aan arkayn si ay u wada qaataan jawi farxadeed maadaama ay kalsooni badan ku qabtay hadalka ma soo celin codsigiisa oo waxay tirahay xabiibi dhanka kale Mahad waxa uu qarsoonaa damac kale kaasoo ka weynaa kulanka oo kaliya waxa uu damacsan inuu laabtiisa geliyo dhunka shaqabowna hoostooga dhiidhiibo habeenkii ayay isu yimaadeen goobtii ay ballantu ahayd iyaga oo wajiyadoodu ka muuqato farxad aad u badan mid walba midka kale inta ishiisa iska eego ayuu hoosta daymo jacayl ku eegayay waxa la bilaabay sheeko shuux oo cod hoose ku baxaysay isla markaana xaada dhaqaajinayso durbadii Mahad waxa uu bilaabay gacanka hadal aan gambasho lahayn balse micno kala xambaarsan sheekadii ayaa sii kululaatay codkiina ayaa hoos u sii dhacay durba waxa la isla aaday hawada sare عجيب Maandeeq waxaad moodaa inay dhiiq lugaha la gashay oo aysan isdhaqaajin karin bal isku soo dhawaaday oo inta qoorta la isqabtay ayaa bashamaha afka la isugu saaray waynaga inta qaybtii koowaad ee sheekadan dhex martay Mahad iyo Maandeeq qaybta kale si aan ugu soo gudbino nagu dhiirigeliya asxaabay like inoo saar page-kan muuqaalka inoo la garay inoo share garaya si uu gaaro asxaabadii kale wanaagsan mahadsanidin